الله وبركاته عيد وناكسنا يا دلنا يا هدمانتين داوديال meel kasta oo aad joogtaan waqtigan aad ka daawanaysaan amba aad kala socotaan barnaamijkani waxaynu ku guda jirnaa barnaamijyadii aan ugu talagalnay munaasabadaha ciida sidoo kale waxaan meesha ka marnayn heesaha macaan ee aanu jecelnahay uguna talagalnay ciida inaad ku wada raaxaysataan waxa barnaamijka markan hadaba diyaar inoogu ah waxaan filayaa fanaaniin badan oo hore la soo kulanteen markan maxamed xasan xuseen Lafoole ayaan oran lahaa bal ku soo dhawaadiga iyo markaaga iyo barnaamijka ciida aan ugu talagalnay waa mahadsantahay walaal waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaan dadka reer Soomaaliland gaar ahaan dadka aan la joogo reer Hargeysa waxaan leeyahay dhamaantiinba ciid wanaagsan waxaan filayaa sanadkiisa inaad halkan waliba nagula ciiday stuudiyaha hadana khaldanay waxaan idin ciiday ciidii Carafadii waan halkan joogay marka sidii waan wali u joogaa Hargeysa ma sha Allah waa wax lagu farxo kulay inaad inta soo dhawliyo reer Hargeysa aad la iido adigoo meel kala duwan soo maray hadana Hargeysa aad ku soo noqoto daawadayaal Lafoole ayaan jecelahay intaan dib ugu noqon inaan idin saaro mid kamid ah heesihiisa oo aan isleeyahay bal markan si ay barnaamijka ugu soo wada durkaan heestii saxan saxo daawasho soo gudbo heestaasi saxan saxo mar kale iyo Lafoole goorma ayaad adigu dareentay inaad heesi karto oo aad fanaan tahay runtii ilaa iyo yaraanteedu waan jeclaa inaan heeso fankuna wuxuu ahaa wax hobby oo aad u jeclahay marka ma sheegi karo xilli aan dhigay xilligaas oo ahaa laakiin waa wax aan ku soo koro igu soo barbaray dhigiga ku jira runtii oo aan weliga jeclay baa fanku marka waqtigii caruurnimadaadii oo kalimiyaad heesi jirtay si weyn markaan caruurta waan heesi jiray iskuulka waan ka jiray galaaska aan ku jiro waxaan kaloo kamid ahaa wixii kacaanka marka noloshayda inta badan waan ku dhex jiray fanka iyo heesaha laakiin heesaha kuugu horeeyay goormaad soo saartay sida filayo ruun malaha album kama horeyso ma hadana khaldanay ruun waxa ka horeeyay dhalan maayo kaasoo ay igula jirtay
fanaanada la yiraahdo Xabiib Xasan Tuuxo kaasa igu horeeyay albumada soo shacbaxay laakiin waxa igu horeeyay album lagu garaacay miisgan fudud ee kabanka oo aan Muqdisho ku sameeyay 1993 oo dhammaan ahaa heeso wadani ka hadlay dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya kaasa igu horeeyay marka albumkaasi dhalan maayo heesii ku jiray oo kala dumarka bacduunba luuqdeedii ma sii xasuutaa mise heesahan kale qaadaysaa ma yoolahay waan xasuustaa wali hay dumarka bacduunba hay dediga bacduunba igu dhega nuglaayo aad soo dhaweeyo dhaawacii horeen qabay waxa tahay dhaqtaraadii muddo iga dhayayso wadi dhiirigelisay waaba la foole codkiisiyo ambience maray sidii waqtiga lagu dhageysanayay waqtigan kulay waxba iskama ka bedelino wax badan isbedel badan ma jiro kulay isbedel badan ma jiro aad u macaan yihiin oo waan dareemay albumkaasi marka waqti ma waxa qiyaasiisa wuxuu ahaa 98 buu ka soo baxay Denmark 98 waxaan ku sameynay Copenhagen marka kaasa igu horeeyay albumadii aan markaan dibadaha imid aan duuba kaasa igu horeeyay marka kaas waxa ku xigay run kadibna ayaan kadib deeqa iyo marka heesaha kale dhaxroorka ka badnaa oo aan halka iyo labada u soo tuuri jiray ka badnaa waan gartay haddaba markaynu albumkaasi wali inteena ka bixin waxaan filayaa waa waqtiyadaasi ayaa kugu dambeysay in heesaad gabadh la qaado inta badan kaliya baa heesa soo sidaa ma inta badan kaliya baa heesa waxa jirtay gabadha igu jirtay albumka dhalan maayo oo Xabiib Xasan Tuuxo albumkii run gabadh baa iyadan igu jirtay la dhigi jiray Nimca oo kale dadku yaqaan Nimca dareen iyaduna hees ila qaadaysa jiray labada hablood ay ugu dambeeyay dabadeed anun baa heesaha kaligay wana jecleen marka miya inaad talantaan dumarka la qaado heesaha lagu sameeyo baba runtii ma diidan inaan la heeso hablaha waa tahay waxaan filayaa heese aad u tiro badan inkastoo aad soo qaaday haddana waa albumkii kugu horeeyay ee la arko kuguna dambeeyay iyadoo gabadhi ay kula heesayso sidaasi marka maxaa taasi ku sababeed malaynaysa inaad la heesino adigu kaliya haysto sabab waxaan uga dhigi karaa maantii waxaan ku noolahay wadan qurbaa oo aan wadankeena ahayn ma jiro group fanaaniin oo isku xiran oo meel wada jooga marka horta markaan dhulka joogno nimbatiisa cuslayso nimba hortiisa u qararaa jaanisku iska yareeyay marka xilliyada yar aan macnaha freega aan shaqay waxba jirin ayaa suurtagal in heesahan ugu sameeyo marka iyadaana de ma ila joogto gabar fanaanada ama ma heli karo oo sidaan u mashquulsan oo wada mashquulsan dadkuna isku meel ma degan wala kala fofogay marka waalis way ma he waan wada qaadi leena hablaha heesaha sida badan waxa jirta heesa aad u macaan oo adigu aad tirasay baa jirto waliba adiguna ku looqeynayso talo heestii kugu horeysay kugu dhalatay cursatay baa runtii heeso dhowr jira oo anigu aan sameeyay waxa jirta hees leeyahay ayaan dhalada igu horeeyay hees leeyahay heesanigu aan isku dayay inaan sameeyo heeska iyo heeska leeyahay deeqa oo kale sidii baan xabiibi wala ku xushmeeyo oo kale ayaa jiray iyo qaar hadda aan soo wado insha Allah dhawaantan hadii aan bal kuwaad soo wadaynteynaan u gudbin heesa aad u macaan baa jiro waliba jacaylo dhalinyartan dambe iyo kuwa dhaxaba aad u taabtay aan soo qabtay heesaha dardaaran oo kale dayaxiyo cadceediyo heestaas ayaa ku sameeyay runtii heeskan waxa markii ugu horeysay hirgelinta heesaha uga qayb galay nin aynu walaalnahay la yiraahdo Cabdixakiin Xasan Xuseen oo loo yaqaan Cabdidiini isaga iga horeeyay kuna soo galay ii sheegeen hirgelinta heesaha barnaamijka la jiray marka runtii ninkii sameeyay xaqiiqad ma hayo magaciisa buuxa laakiin laxanka waxa sameeyay Cabdidiini kulli laakiin inkastoo ninkii sameeyay aanad hayn laakiin adigu luuqdi baad haysay dugu maqashay taayid noogu qaad